بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله فيديو كان وحنا وجه اللي تونا إنه شوب دروين عن كوسمين تونا جراوند بيم. إن شاء الله فيديو كان جراوند بيم كشوب دروين كيسا وحنا قنتونا على بارت بارتي ككوباد وحنا كجه اللي تونا إنه إنه مركو هو الرئيسة مشروع إن ندب وقلنا قلنا إنه إن فعنا ومحورة جراوند بيم وحيالها اللي نجربه متطلبات كلا نجربه ومحينا إنه كومبليت شوب دروين عن كوسمين جراوند بيم كا sidoo kaleetana waxaan uga hadli doonaa aynu yani markii aan مثلا aan any beam ama any ground beam intaan soo qaato aan doonayo in aan tasliix ama xogaa yani waxaan soo dhexgelinayaa qayb yar oo kamida design-ka marka la tasmiim lagu sameynayo ground beam-ka tasliixiisa ama waa maxay xadiidka loo isticmaalayo ground beam-ka qaabka loo dhigay iyo waa maxay fikirka ka dambaysa pointigaasna insha Allah waxaan doonayaa inaan ka hadlo aan videogan si aad waa maxay aad shop drawing aad ugu sameyso adigoo fahansan horta waa maxay ground beam iyo waa maxay sababta aan qaabkaas aynu waa maxay tasliixiisa aanu ama xadiidka aynu waa maxay aynu ugu wasaanay gudaha beamka aynu haysano marka insha Allah mashruucina hadii aan soo furno mashruucina hore waan soo aragnay inuu ma cusba مشروع كان نحن هراء أصلا سمينا أنه مثلا قاف واحد أما فوتين نمبر واحد يعني قصة سمينا isolated footing قصة سمينا شوب دروين لما يسترن ونسوء أرقنا وحويه دمان حيالها أن نجربه تريكسكا يعني complete إن شاء الله هنفيليا أينو فيديو وده هذا دي بيقول نقطة آد يعني هذا هم حياة سوف هنتي آد مركا إن شاء الله واسلام مشروعي ويو هدركيس قاف واحد قاف اثنين قاف ثلاثة قاف أربعة إلا قاف خمسة كان هدركيس قاف خمسة وحويه combined footing أما وحويه وفوتين كلان صدي لبا كلام هدي قيبتان هوسين ودقنا واحد أركينا وحويه جدول كي نسأوه هيسني مثلا قاف واحد وحكيري ديرر كيس waa maxay waa 2 عرضigiisa ama weertigiisana waa maxay waa 1.85 irtifaaciisana waa maxay waa 30 سنتي marka qaybtan waa maxay waa qaybta plain concrete-ka ama waa maxay abcaad al-kharsaaniya al-caadiya yani waa maxay qaybta plain concrete-ka dimension-koodii weeye sidaan halkaana waxa weeye waa reinforced concrete-ka dimensions-koodii weeye طبعا عفوا waxa weeye wilaha mashruuca kan waxaan ku dhameystiraynaa insha Allah Arabi marka hadii dadku مثلا ay fahmi waayaan hadhow mustaqbalka waxaan isku dayaynaa waa maxay mid tarjumano English inaynu waa maxay aynu soo duubna asagana insha Allah balse waxaan rajeynayaa waa maxay boqolkiiba kolley farq weyn uma dhaxeeyo qof waa maxay inuusan waa maxay insha Allah noo isku dayay inta si kasta waa maxay aan u awood inaan u basiidiyo macluumaadka rabay inay soo gaaraan ay dhankan waxaad arkaysaa waa maxay tasliix sufli waa maxay waxaad arkaysaa 5.16 iyo 5.16 labada qayboodba kor iyo hoosba inuu isticmaalo waa maxay nafs الحديد xogaa pointigaas videogan ayaan kugu aad baan ugu dheeraanaya waa maxay pointigaas sababta waa maxay keentay inaanu labada dhinacba waa maxay aynu same amount of reinforcement aynu u isticmaalno aynu pointi aad muhiim u ah weeye waxaan rajeynayaa waxa weeye inaad fahmi doonto aad marka mashruucina waa kana مثلا maanta to waxaanu sameynaynaa aynu مثلا أني ومحي سميل continuous يعني سوق هذا مثلا 5 أو كلته يعني هو سوق هذا إنه مثلا control C وحنا صوري كان هنا مع template كان جديه سيان صوري كان دورنا إن شاء الله مثلا كان كلته يعني past كلها هنا إنه وانت إن شاء الله footing كان يوم محي السميل كان أما محي ground beam كان هيستا يعني إن شاء الله شوب درون كسمين دورنا إنه مركين تاني وام محي شوب درون كين أوجلين وحربا مركو جهر سينن folder kan soo furaan si aan u fahanno waa maxay horta ground beam waxa weeye waa beam ama waa maxay xizaam isku haya laba qaacido ama laba footing oo مثلا isolated ayaan u adeegsanaa aynu waa maxay si aynu ugu rabdino ama waa maxay aynu ugu xirno aynu sababta ugu muhiimsan aan u adeegsano ground beam-ka waxa weeye مثلا hadii mustaqbalka uu dhaco waxa la yiraahdo differential settlement hadii uu dhaco si waa maxay uusan u dhicin differential settlement ama مثلا hadii si kala u dhiga waa maxay qayb kamida mabniga hadii hubuud ku dhaco ama waa maxay inuu ciidi ay settlement ku dhacdo ay hoos u degto oo kaleeto with any cost yani wax kasto sababi karaba in
qaybtii kale oo waa maxay mabniga ama dhismaheennina waa maxay uusan dhaqaaqin marka waxa dhacay wax la yiraahdo differential settlement oo waa maxay in mabnigii qayb kamida uu failure ku dhaco mesela wax kasto horizontal sida beamski plataadki waa maxay slabski waxyaalahaas oo dhan waa maxay cracks ayaa ku dhacaya waa maxay ama waa maxay shuruuq ayaa ku soo baxaya mesela kaas oo sababi kara waa maxay dhismaheena oo dhanba inuu failure ku dhaco marka si aan uga hortagno waxa weeye dhismaheena hoos oo dhan baan waa maxay aynu iskaga xiraynaa aynu mesela si waa maxay uusan dhismihii qaybna aysan hoos ugu degin qaybna waa maxay aysan meeshida aysan u joogin ma fahantaan si waa maxay labadaas qaybood hadii waa maxay qaybna hoos u degto qaybna meeshida joogto failure-kaas aynu uga hortagno uusan u dhicin failure dhismaheena sidoo kale tana waxaanu adeegsanaa waa maxay ground beam-kan mesela hadii aynu haysano wall qaybta sare ee waa maxay door ardiga mesela inaynu ku xamilno waa maxay darbiga aynu dhisayno inaan ku dul dhisno waa maxay beamkan korkiisa okay marka waa qaabkaas weeye waxaad arkaysaa waxa weeye tasliixa xadiidka inuu gudaha u galay reinforced concrete keena ama reinforced footing keena qaybta waa maxay kharasaana waxa leeyahay qawaacid al-kharasaaniya inay gudaha u galeen saad u jeedid sidoo kale waxaad arkaysaa sterobiska ama waxa weeye in ay ku istaagayaan waa maxay amuudka bilowgiisa marka labada pointi waxaad aad uga fahmi doontaa waa maxay markii aan show drawing-ka aynu sameyn doono waxaanu ka wadnaa aynu marka waxaad arkaysaa waa maxay horta shuruudaha ugu muhiimsan waxa weeye in xadiidka waa maxay uu column-ka u dhaafo ama center line-ka column-ka inuu waa maxay مثلا uu dhaafo wax loo yaqaano LD ama waxa weeye development length in waa maxay dhanka kale u dhaafo marka pointiyadaas oo dhan insha Allah hada waxaan rabaa si overview in aan intuu waa maxay idinku sii sheego laakiin waa maxay pointiyadaas oo dhan pointiya kala cadaanay oo dhow insha Allah marka aynu si deeply uga hadli doono ama shop drawing ku sameyn doono ground beam-ka hadeen waa maxay kana xabad u soo noqon aynu dhanka kale waa maxay isagoo waa maxay site-ki isagoo 10 feet-ki ee la sameeyay waxaad arkaysaa halkan waa maxay waa simil ama waa maxay ground beam kur rakizan ama waa maxay dhankaana wuxuu kaga rakiisan yahay waxa weeye ground beam kaleeto dhankaana wuxuu kaga rakiisan yahay mesela ground beam kaleeto marka hadii mesela asaan oo kaleeto dhahno waxaad arkaysaa waa maxay ground beam-kan kan inuu main-ki yahay kan inuu secondary-ga yahay waxa ku cadeynaya waa maxay in xadiidkii secondary-ga dusha ka maraya waa maxay xadiidkii kaleeto main beam-ki ama waa maxay main ground beam-ki kaleeto marka xadiid noocan oo kaleeto mesela mashruucina aan ku haysanaa beam saas oo kaleeto waxaad arkaysaa beam saan oo kaleeto mesela beam saan oo kaleeto okay waa ground beam laakiin dhankaana muxuu ka haystaa waa maxay beam kaleeto hoosna waa maxay beam kaleeto ayuu korka ka saaran yahay marka yani tusaalahan mashruuc waanu haysanaa waa maxay beam saas oo kaleeto okay marka hadii aynu folderkeena dib ugu noqono okay soo waa maxay qaybta sare aynu naga tusnaa kor waxaad arkaysaa waa maxay afar xadiid buu isticmaalay hoosna waa maxay same amount of reinforcement ay hoosna ka isticmaalayaa sababtana waa maxay cabarka dib within 2 minutes 3 minutes aynu arki doonaa sababta waa maxay ka dambaysa marka mesela pointigan rabay waa maxay inaan ka hadlo waa kana waxaad arkaysaa waxa weeye ground beam-keena qaybtan sarena waxa weeye afar xadiida waa maxay afar waa maxay rebar ayuu korka isticmaalay qaybta hoosena waa maxay isla afar rebar marka sababta waa maxay waxaanu ognahay waa maxay any beam kasta hadaynu soo aragno mesela beam caadi hadaynu soo qabsano mashruucina caadiga hadaynu soo tagno halkan waxa inoogu sawiraa waxa weeye aywa halkan soo aragna waxa weeye waa beam caadiya waxaad arkaysaa waa maxay supportiyada caadiga beam-ka soo kartay marka hadii aynu moment ahaan aynu u sawirno load-kan waa maxay qaybta sare kaga imaanayo marka moment-gina dabcan saas ayuu u sawirmayaa soo kartay maaha qaybta hoose waa maxay positive moment-gi qaybta sare waa maxay support korkiisana wuxuu noqonayaa waa maxay negative moment-gi ayaa qaabkaas inoogu sawirmaya marka tan waa maxay dabcan waa beam unique yani waxaan ka wadaa unique waa maxay hada arkaysaa waa maxay dhamaan masaafaadka u dhaxeeya beam-ka waa maxay support kaleeto inay isku mid yihiin marka dabcan markii aan waa maxay udhati aan fulinayo ama mashruuc udhati yimaado oo kaleeto yani aad bay u adagtaa waa maxay beam saan kaleeto inaan arko laakiinse kan waxaan rabaa bas inaan idinku fahansiiyo qaabka momentiga soo noqonayo marka waxaad arkaysaa waa maxay udhati marka aan beam saan oo kaleeto aan doonay inaan xadiid ku sameeyaan waa maxay reinforcement-iga aan ama xadiidki waa maxay
inaan soo dhexgeliyo maxay arkaysaa maxay in momentiga labada dhinac qaybta sare negative-ka iyo positive-ka inuu positive-ka badan yahay marka waxaad arkaysaa waxa weeye in xadiidka qaybta ugu badan uu qaybta hoose waa maxay aan u adeegsan doono beamkeena qaybtan sarena waxa weeye inaynu مثلا extra waa maxay reinforcement bas inaan u adeegsan karno aynu qaybta sare qaybta ka sareysa supportiga inta kale soo hartana waa maxay minimum reinforcement inaan u adeegsan karno marka tan waa maxay waa beam caadiya marka مثلا haddii aynu u adeegsano beamkeenan مثلا haddii aynu u adeegsano in waa maxay kor ka xamilo inuu kor ka xamilo yani مثلا inaan qaybtan sare ka dhisno waa maxay derbi bas marka derbi bas loadka kor qaybta sare ayuu kaga imaanaya marka momentigii automatically waa maxay positive ayuu waa maxay saas waa maxay haddii مثلا aan isku dayno halkaan naftigiisa ka sawiro momentigii waa maxay si positive ayuu waa maxay saas bas uu noqonaya haddii مثلا momentigii oo waa maxay loadka haduu kor kaga yimaado okay marka xadiidkii qaybta ugu badanna waa maxay waxaan dhahnay waxa uu waa maxay galaya qaybta hoose waa maxay beamka ayuu waa maxay xadiidka inta ugu badanna aan u isticmaalayaan marka sidoo kale ground beamka hal point kale oo waa maxay kaga duwan yahay beamka caadiga ayaa jira مثلا hadii aan مثلا sorry F5 clear all okay ماشي مثلا the ground beam قيبته هوسه waa maxay hoos مثلا hadii waa maxay settlement la'alla Allah u dhaco hoos waxa kaga iimaanaya waxa weeye waxa weeye turbadii ama ciidii hoose ayaa pressure hoos kaga soo sameynaysa marka loadkii qaybta hoose ayuu waa maxay saas waa maxay effect uga yeelanaya marka waxaad arkaysaa qaybta sare in momentigu dhanka kale isku rogay waa maxay hadarta negative-ka uu ka badan yahay qaybta hoose ee momentiga positive-ka ahaa marka labada dhinacba waa maxay ground beamkayga uu noqon karaa مثلا hadii loadkan wax differential equation differential settlement uusan dhicin kaliya waa maxay wallka qaybta sare kaliya waa maxay xamilay ground beamkeena momentigeena waa maxay arkaysaa positive-ka ayaa badan hadii مثلا differential equation differential settlement uu dhacana waxaad arkaysaa waa maxay in momentigii isrogayo waa maxay qaybta sare u aadayo marka aniga ahaan pointiga markaan designer aan ahay ama designkii waa maxay dejinaya ama waa maxay rabo inaan tasliixan ku sameeyo beam saan oo kale taa ma garan kara waa maxay momentiga meesha kaga yimaado sidoo kale tana ma garan kara waxa weeye momentiga positive-ka iyo negative-ka mid kasta waa maxay yani waa maxay waa isbedbedelayaa marka sidaas darteed waxa weeye waxaad arkaysaa waa maxay in waa maxay designerka مثلا وبدنا حوي تايبين كان ground beam كأركيسو عاد إن قيبت سريع حديد كقيبت هو سبب محي سيم أيهين أي سوى محي لابد لنعب هو محي وقف الجناد هذه مثلا بوين مومنتي وقيبت سر بوزيتيف كهو محي وبطه إن هو محي حديد كهو محي بوزيتيف كان هوس ولي جيساس هذه هو محي نيجاتيف كهو محي وبطه هو محي مثلا هوس هو محي إنه محي تربة بريشر هوس كجسوا سميساي soil pressure waa maxay qaybta hoose kaga yimi inaan waxa weeye aan xadiidkii kale oo ka hortagaya waa maxay pressure ka saan waa maxay qaybta sare ee beamkeena aynu soo dhigno marka waa kaasa marka waxa weeye labada dhinac waa maxay same amount of waa maxay xadiid ama maxay reinforcement ayaan labada dhinac baan u isticmaalayaan pointigaas marka waxaan rajaynayaa insha Allah waad arkaysaa waa maxay section kan kale aanu aragno waa maxay 4 iyo 4 waa maxay labada dhinac u isticmaalay إن شاء الله مدان بوينتي كسو قدمنو بوينتي لبعض الربعين أن كهلا وام حي محل إن جرها وام حي مركب إن وام حي مركب إنه سمعين إنه شوب دروين مثلا شوب دروين سانو كلتا اسم اللي سانو كلتا محل جرها وام حي إنه شوب دروين كي كم مقضو مركب نبركو عذرك يساوي حوي h مثلا قريب كم إذا وحوي التميدا وميدا أنو هرو سميان mid kamid ayaan soo qaatayaan soo xagaratay ma marka waxa laga rabaa waa maxay elevationkii kan waa maxay waa plankii way elevationkii marka saan qaabkan aan u soo wareynaa elevationkii waxaad arkaysaa waa maxay inaan qaybtan stirrubiskii aynu waa maxay saa ugu wazacnay qaybta kale tan stirrubiskii inaan saa ugu wazacnay marka stirrubkan waxaad arkaysaa waa maxay in uu ka bilaabmay waa maxay stirrubka kood in ka bilaabmay amuudka 5 cm yani مثلا hadaan halkan aan linear aan dhaho soo xagaratay maaha مثلا من هنا لهنا
هذا waa maxay almost waa maxay waa 50 milli ama waa maxay 5 centimeter waa maxay strip kood inuu ka bilaabo waa maxay amuudka ilaa amuudka kaleeto okay xadiidkii kore waa maxay afarta sectionkii waa kana soo xagaratay maaha sectionka marka saa waagna waxaad arkaysaa waa maxay afartii amuud iyo afartii waa maxay reinforce waa maxay xadiid iyo afartii kaleeto xadiid inuu waa maxay kori hoos u dhigtay 4 5 16 4 5 16 waad arkaysaa marka xadiidkii koowaad waxaad arkaysaa waa maxay in uu qaybta sare saa u marayo soo xagaratay maaha ilaa iyo waa maxay meesha ugu dambaysa marka مثلا qaacida saan oo kaleeto ah hadaynu fiirino dimension keeda waxaad arkaysaa aad in waa maxay ka badan tahay 12 meter in ka badan tahay 12 meter almost waa maxay waa 17 meter marka xadiidka aanu haysano ama waa maxay birta aynu haysanana waa maxay dherarkeeda waxa ugu dambaysa 12 meter sida standardka ah marka waxaad arkaysaa waa maxay in dheeri uu jiro marka waxaan u baahanahay waa maxay inaan taqsiid aan sameeyo ama waa maxay inaan xadiidkii aan jarjaro aan waa maxay mid kastana aanu duul alwasl aan u sameeyo ama waa maxay rubaad aan u sameeyo aan soo xagaratay ma dhamaan kuwa rules bay leeyihiin horeen qayb aan u soo aragnay aanu kana waan arki doonaa aynu waxa weeye sida waa maxay aynu labada overlap aan ugu sameeynahay labada xadiid iyo يعني انتبهوا انه ما نمبر كان استعمالي دونه بالضبط overlap kaas intuu noqon karo marka waxaan overlap kan u sameeynaa sababtu waa maxay lan xadiidka aanu haysto waa maxay 12 mitir marka xadiidka koowaad 12 mitir baan waa maxay tuurayaan hal xadiid soo xagaratay maaha intii kale soo hadhayna waa maxay مثلا waxa soo hadhay waxa tiraahdaa 7 mitir oo kaleeto 7 mitir oo soo hadhay مثلا ayaan waa maxay ayaan tuuraya dhanka kale ku tuurayaan waa maxay sidoo kale tan si waa maxlabada xadiid ay isu qabsadana overlap ayaan sameynayaan saasoo kale marka shop drawing aslanba muhiimadiisa ugu muhiimsan waa maxay inuu waa maxay aad ogaatid waa maxay xadiidka aad isticmaalayso dherarkiisa intuu leeyahay iyo waa maxay dul wasla hortii yani in loo xusaan kale aad markii aad qofkii xadiidka waa maxay formankii mowqici jooga ama sayidka jooga waa maxay fulinayay xadiidka مثلا aanu isticmaalayo qaacidadan kaleeto ama footing kan kaleeto inuu fahmi karo qasabay adigu inay la joogto yani مثلا hadaan room aan u keeno waa maxay loo xusaan kaleeto aan waa maxay naqshadan kaleeto fuli خلاص يعني ويقنا ومحي ميت كواد إلا مش وجودهم بيسمى محي حديث كواد أنتوا يها ولا 12 متر أوتوماتيك لو يقنا وأنتي حبوا وأفر حبوا سكشن كي سواء كان واحد است أوتوماتيك لو أركيا أو سواء حجرتين معها كي كلا تنا محي إلا يوم محي لما تك نهاية ده اللهم المستعان فوتينك إلا أنك كلته لما دايميشن كي سنة وأركيا مركا يعني أوتوماتيك لو محي أنتوا حديثك شرعي ويقنا خلاص أديكم هردتي ومحي مركي أتمادو inaad aad istilaamto shaqadaas uu qabtay yani خلاص loo xibaad haysataa meterkiina wad haysataa oo meterinaysa mid kasta xadiid kasta intuu saxsan yahay iyo waa maxay hawee rubaadkan oo kaleeto in waa maxay meesha loogu talagalay inuu saxsanaado marka hadii مثلا aan dib ugu soo noqono pointigiina hore haduu momentiga saan oo kaleeto yahay dul rubaadkan horeen waan usoo sharaxnaa waan filayaan dul rubaadkan ma any point kasta ayaan dhigi karaa dul rubaadkan soo xagaratay maaha mise waa maxay meel xadidan ayaan waa maxay dhigayaan marka waxa jirta madraso dhahaysa مثلا hadii aad simil ama maxay ground beam aad maxay tasliixinayso ama maxay aad reinforcement-iga aad shop drawing aad ku sameynayso aad dul rubaadkaas muhiim ma laano labada dhinac waa maxay same amount of reinforcement ayaad isticmaashay 4 5 16 و 4 5 16 labada dhinac waa isticmaashay aad marka aan khasab ma ahan inaad yani pointi meesha waa maxay aad ka jarayso xadiidka oo overlap ka aad ka sameynayso aad inaad garato aad بالضبط laakiin dadka kalena waxay leeyihiin مثلا madrasa kale ayaa jirta iyadana tiraahdo inaad u tasliixiso ama rubaadka aad u sameeyso kaano inaad adigu waa maxay tasliix ku sameynaya shop drawing ku sameynaya beam caadiga waa maxay aynu naqaano adoo ku sameynaya marka waslada markii aynu sameynayno waxaan rabaa waa maxay meesha zero momentiga ah إن waa maxay wasla ka sameeyno zero moment ina wasla ka sameeyno مثلا marka beam kan kaleeto laba xadiid buu leeyahay xadiid qaybta sare iyo xadiid qaybta hoose ah soo xagaratay ma marka qaybta sare waxaad arkaysaa waa maxay inuu momentiga uu ku badan yahay waa maxay supportiga korkiisa inuu momentiga ku badan yahay supportiga korkiisa marka waan ka fogaanayaa meel kasta oo moment yahay meel kasta zero tension ayaan raadsanayaan waa maxay meel kasta waa maxay wax tension ama wax moment uusan ka jirin ayaan raadsanaya marka waa maxay rubaadka ama waa maxay overlap waxaan ku sameyn karaa waa maxay
مثلا halkaan oo kaleeto yani haddaan tusaale ahaan saan oo kaleeto dhaho xadiidkan aan rabo inaan tasliixiyo qamara saan oo kaleeto ah مثلا ماشي لحظة أيوة تمام سان كليتو دي أن سان له مثلا 5 ماشي هذيك راه محي حديد كيغا كوبات سوري كلير سيم حيانا اوكي هذيك راه حديد كيغا كوبات waa maxay مثلا 12 متر way 12 متر marka مثلا ilaa intaas oo kaleeto in waa maxay iga ekaaday soo garatay marka halkaan oo kaleeto meesh igaga ekaaday midka kaleeto overlap waxaan ku sameyn karaa waa maxay halkaan oo kaleeto laana halkaan mantiqadan oo kaleeto waa maxay saad arkayso mantiqadan waa maxay مثلا sorry عنده منطقتان waxaad arkaysaa sorry okay منطقتان waxaad arkaysaa waa maxay inay qaybta sare ay tahay zero moment in qaybta sare tahay zero moment marka halkaan in waa maxay am zero tension halkaan kala tirabaad waan ku sameyn karaa okay marka hadii مثلا qaybta hoose ay waa maxay sorry yani xogaa barnaamijkan oo igu cusub yahay marka wali la sifaan lama aan qabsan yani qaybta hoose hadii مثلا xadiid aan saan kala dhigay waxaan arkaynaa marka waa maxay momentigeeni positive ka ahaa in waa maxay qaybta hoose saan u yahay marka meesha waxaan rabaa zero momentiga waxaad arkaysaa marka zero momentiga inuu rakiisada ama supportiga hoostiisa waa maxay zero moment yahay marka u dhigtay مثلا hadaan rabo inaan waslada ama xadiidka waa maxay dhererkiisu ii saamixi kari waayo aan u baahdo waa maxay overlap inaan sameeyo aan qaybta xadiidkuna yahay qaybta hoose momentiga ayaan fiirinaya sawirkii momentigayga saan oo kale taa soo xagaratay marka waxaan fiirinayaa waxa weeye pointiga oo ma zero momentiga pointiga zero momentiga okay marka hadii saan oo kale kan oo kale aan saan sameeyno مثلا xadiidkii koowaad مثلا saan u tuuraya waa maxay 12 mitir soo xagaratay 12 mitir مثلا halkaan oo kale iga dhacayo soo xagaratay halkan uu ku dhamaado waa maxay momentiga ka jira la soo markaan ma ku sameyn karo yani مثلا saan oo kale hadaan dhaho سانو كهدي أنه هو محي غلط وي لأنه هل كان بوينتي كان واحد أركي سوا محي مومنت أي كجرة فهل كان هو محي تنشن أي كجرة سو زيرو تنشن معها مركا غلط وي إن هو محي أنقابك أو سمية مركا حن سمين كلا هو محي إن سانو كليته أنه إن ميله زيرو مومنت جاء مثلا إن هو محدد كي كواد أن شرطه إنتانو كليته مثلا سو حقرتين معها كي كليته هو محي أن جرته هل كانوا كليته سانو كليته مثلا سو حقرتين معها marka ka wadaadka soo maxay zero moment weeye marka rubaadkaygi ama waa maxay overlapkaygi waa maxay waxaan ku sameyn karaa aan rakiisada hoosteeda marka calculation wuxuu noqonayaa dhamaystirka مثلا marka dhamaadku wuxuu noqonayaa waa maxay مثلا hadii aan haysto top reinforcement xageeba marka aynu ka sameeynaa aynu الله مستعان حقيقة نضل الرسل كوسمين كرنا عينه وميدل سبانك وطبعا فيسمت لأنه هالكاسة واحد وي وزيرو مومنتيجا لكن هذه يعني مثلا إن كهل لنا bottom reinforcement سأقول إحنا نقول كرا واحد وي إن supporting هاي ستي أوكي marka qaadadaas yani maskaxda ku hayo soo xagaratay markasta waxaan ka xarreeyaa waa maxay zero momentiga meesha marka pointigaas insha Allah waxaan rajaynayaa inaad fahanto aad intaasaan ku soo koobaya waxa way qaybta hore aan kaga hadlayo waa maxay sharxi kooban ground beamka insha Allah video ku xiga waxaan kaga hadli doonaa aynu aduulaha naftan wadaayo anagoo shop drawing complete aan ku sameeyna part 2 ga insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh